dareemayay muddo badan aan Yurub ka daba wareegayay, khaasatan dhinaca galmada. Markaan sharaxo baan muddo badan ka daba wareegayay waddanka Yurub. Waxba way iiga qaban waayeen. Gaas baan dareemayay, laf xanuun baan dareemayay. Kambanigan markii aan Facebook ka helay, waxaan raadiyay telefoonkooda oo ku jiray meesha Facebook waan ka helay. Waxaan la xiriiray gabar Leyla la yiraahdo iyo nin Cabdinuur la yiraahdo aad iyo aad ii caawiyay oo qaali ah oo saaxiibkay ah. Markaa ka bacdi saaxiibnay ninkaasu waa ninka i garab qabtay oo daawooyinka xagga daawooyinka iyo dhakhtarka igu xiray. Dhakhtarkaasaan la xiriiray daawooyinka waxaan isaga gartay caafimaad weyn. Qaybtii ugu dambeysay baa maanta ii timid. Maadaama aan caafimaad ku dareemay qaybihii horeeto, aan ogahayna dad badan oo Yurub ku dhiban oo daawooyin weyn asaxana ka helinin. Waxaan kula talinayaa kambaniga inaad la xiriirtaan. Qofka caafimaadkiisa Ilaahay baa bixiya. Anigu alxamdulillah rabbil caalamiin qof bilaadanana been uma qarinayo. Waxaanan ku caafimaadno waa ku caafimaaday ma oranayo. Xaqiiqatan caafimaad weyn baan dareemay oo aad u wanaagsan baan dareemay. Insha Allah waxaan leeyahay hamoogaanina waa dad ma aqoonin markaan daawooyinka aan ka gadanayay dadka inaan helayo iyo in kaleeto maanan aqoonin. Waxa weeyaan waa dad Soomaaliyeed waan aaminay ayaguna way aamineen sidii aanu aaminay bayna iigu shaqeeyeen. Waana dad Islaam ah oo run ahaantii aan oran karo waa dhalinyaro, waa dad wanaagsan oo intii dad wanaagsan yihiin wanaagsan. Walaalahayga xanuunsan waxaan kula talin lahaa inaysan ka gabagaabin oo aysan oranin dhaqankii Soomaalida ahaa waxbaa lagugu gadanayaa ama seen waxaan ku helayaa. 3 bari gudahood baan ku helay daawadii iigu badnayd meedadii iigu dheerayd waa midda hadda maanta i hortaala 3 bari baan ku helay. 30 bishan gatay 4 bishana way ii timid waa astaghfirullah waa 4 bari 4 bari baan ku helay. Intii kale waa iiga soo horeysay 24 saac 2 maalmood intaasaan ku helay. Wassalaamu calaykum.